بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن دلهم بدا وضيال كسو دواده برنامج gaara oo la yeelanay qoraaga buug nitaaqa jacayl Cabdiraxmaan Samadoon Cabdiraxmaan Cabdi kusoo dhaw waraysiga gaarka aan ku falanqeyn doono buugaaga nitaaqa jacayl aad iyo aad badan oo mahadsantahay Casiis Cabdiraxmaan waa ku dhawahay barnaamijkan gaarka ah ila yeelatay Cabdiraxmaan oo ku Cabdiraxmaan Cabdi dawadayaal badan baan garanay Cabdiraxmaan Cabdi isku sharax horta intaan barnaamijkeena guda galin Cabdiraxmaan Cabdi waxa uu kamid yahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa كل وانا اسكا المال مهنديسا guud ay tahay warbaahin مهنديسا labaadna ay tahay inuu wax qoro badankana ka qoro amuuraha dareenkiisu badanka u dul qaadan waayo haday jacayl noqotay haday amuuro kala noqotaba aad ba maasantay Cabdiraxmaan hadii aan guda galo sheekooyinka amba buugaaga nitaaqa jacayl oo ah barnaamij buug raad ku raabay bulsho badan buugaasi muddo inta laga ku qaadatay qoristiisa amba ka fikirkiisa sida buuga soo saar lahayd soo saarida magaciisa oo aad bulsho badan u soo jiitay Casiis Cabdiqaadir waa su'aal aad muhiim u ah buuga nitaaqa jacayl waxaan waday muddo sanad iyo 4 bilood sanad iyo 5 bilood oo qoristiisa iyo dareenkiisa aan ku dhex jiray waana buug badanka ay ku jiraan qisooyin dhabo badanka goobjoog ka ahaa iyo qisooyin kale oo aad u la yaab badan isla markaasna dareenkayga soo jiitay markii aan qoray waa mahadsantahay Cabdiraxmaan buugani ma jacayl khaasaba mise waa nitaaqa oo waa jacaylkaas nitaaqada qabiyadaas wallahi Casiisay buuga haddii aan kaaga warramo nitaaqa jacayl waxyaabaha ugu badan ee ku jira ama waxyaabaha ugu badan ee koobsanayo waxa kamid ah waxyaabihii keenayay burburka qoyska waxa kamid ah cutub la yiraahdo raadinta jacaylka wanaagsan oo waa ka jacaylka wanaagsan la raadinayaa waxa ku jira qisooyin goobjoogan ka ahaa waxa ku jira sheekooyin aad u qiimo badan oo anigu aan qoray oo iska leeyahay ba ku jira marka buugu kaliya tamaha dhibaatooyinka jacaylka ma koobsanayo dhiirigelin naftiisu isku jira waxaanan aaminsanahay aan horena u sheegay badanka lamaana kastoo akhrista buugga nitaaqa jacayl inay ka faa'iidayaan way aragnimo qosaysa jiritaanka qoyskooda iyo waliba se amuuraha jacaylka Cabdiraxmaan anagu aragnay da'daada iyo muuqaal ahaan haddana see aad uga sheekeyn kartaa amba aad u qori kartaa amba aad uga faalan kartaa burburka qoyska waayo maadaama aan lahayn lamaana nolosha ku leemeeyay aanad ka warhaynina su'aal aad la weydiiyay bulsho badan aad ii weydiisay horena waan uga jawaabay laakiin waa kuugu celinaya ilaahay aqliga aadamaha qofba in buu ku galaday oo macnaheedu yahay da'du waxba ma xukunto kaliya waxa xukuma aqliga saliimka sida wanaagsan u fikira oo macnaheedu yahay marnaba da'du xayndaab ma aha inay aad aqli badan yeelato aqligu waa wuxuu ilaahay ku galado aadamihiisa koonka saaran way jiraan dad badan oo aniga iga yar oo iga aqoon badan iga waaya aragsan iga magac badan way jiraan dabcan waa jiraan dad iga da'wa weyn oo aan oran karo maanta isku meel ma taagnin marka ummadda ilaahay waa kuwa isku dhex jira intaas ka baxay aad baa mahadsantahay Cabdiraxmaan ma oran karna Cabdiraxmaan Cabdi buuga qiimaha la mandaaba u qoray sheekooyin isaga khaas ah ayaa buuga ku jira aan kugu soo hagaagin ma oran kartaa waayo waxa jirta qisooyinka badanka goobjoog baan ka ahaa hadalhayn badan way igaga soo noqotay kala buuga oo la igu dhaahdo kala qisooyinka qayb kamid ah ay ku qosaysaa laakiin ma jirta baan leeyahay kulli waa waxaan goobjoog ka ahaa baan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdi jacayl wali ma kugu dhacay waa su'aal muhiim ah Casiisay haddii aan dul istaago jacayl wali ma kugu dhacay waxa uu la mid yahay adoo igu yiri wali hargab ma ku helay oo macnaheedu yahay hargabku waa xanuun iska dabiici ah oo qof kasta mara marka intaasan kaga bixi la jawaabta dabcan ma oran karo hargabku waa xanuun soo wada mara dadka waana wax iska dabiici ah oo xanuunada ugu nugul dadka aadamaha marka la eegayo marka waa safareen baan leeyahay marka kaba madni daba waayahay Cabdiraxmaan sheekooyinka qiimaha badan ee buuga ku jira mana la wadaagi kartaa mid iyo lababa waxa ku jirta sheeko aan qoray oo la yiraahdo riyadii hungooday oo nimaan asxaabnahay markaasi ku dhacday riyadii hungooday haddii aan ku soo koobo waa wiil aan aad saaxiib u nahay isla markaasina aan ku wada dhaqnayn magaalada Hargeysa oo ahaa wiil dhalinyaro ah
waxa uu aad u caashaqayaa inan ka mid ah gayaankiisa inantaasoo raadin badan u gelayo muddo badan bay inantaasi isbaranayaan inantaasi magaalada maaha oo magaalo kale markaasi ay degan tahay oo laakiin Hargeysa xilli ay timi ayay isbarteen dabcan uma sheegin inay degan tahay gobol kale inankii muddo badan inantii waa caashaqaya haasaabo badan kadib inankii waxa uu la kulmaya maalmo aad u qadhaadh oo mugdi wata alxamdulillaah waxaan aaminsanahay maanta inuu ka leeyahay nitaaqooyinkii jacaylka sida fikirkaygu yahay maadaama ahaa shakhsiga ugu dhow xogogaalka sheekadaasi uu ahaa marka qisadii riyadii hungooday inta ugu badan ay xambaarsan tahay waa inta kule aadna waan uga sheekayay buugga laftiisa ku jirta daawadayaal wali waxaan bartaan kaga jirnaa waraysigii gaarka ah aynu kula kulanay qoraaga buugga Nitaaqa Jacayl Cabdiraxmaan Cabdi Samadoon warayskuna wuxuu idin ka imanayaa xaruntii gobolka Togdheer ee magaalada Burco barnaamijka waxay idila socotiinaysaa anigoo Casiisa Cabdulqaadir riyada hungooday waa sheekada ugu hadalhaynta badan la buugga ee social media haysata Cabdiraxmaan ma jirtaa sheeko kale oo adiga markaad buugga si qoraysay ku soo jiidatay way jirtaa sheeko aad u qiimo badan baa jirta buuggayga ku jirta oo ugu magac daray qaybiga mid ah oo buugga ku jirta Nitaaqa Jacayl waxa ku jirta sheeko kale oo la wadar jacayl iyo waalidkiisa hor istaagay marka sheekooyinka buugga ku jira nitaaqooyinka u badan way badan yihiin walaal Casiisa waalidkii hor istaagay tabaan wadar jacayl iyo waalidkii hor istaagay waa shaqo aad u dheer oo buugga aan kaga warramayo de waa inaan iscaashaqaya iscalmanaya iswaayaya ka bacdi oo waalidkood soo dhaxgalayo isku ogolaan waayayo waqti badan iyo ay juhdi badan ay galiyaan xiriirkooda waa ugu dambeyn ma suuro galiyo xiriirkaasi waalidkood ayaan inta iyagu soo golaadaan aan markaas ay soo golaan Cabdiraxmaan Cabdi buugga Nitaaqa Jacayl bixinta magaciisa intee laga bay kugu qaadatay sagoor mad bixisay buugga magaciisa Nitaaqa Jacayl horta macnaha guud Nitaaqa in isla fahanno horta waxa ka horeysa magaca bixiyana ka horeysa in isla fahanno Nitaaqa Jacayl waa maxay Nitaaqa Jacayl waxa weeye waa dhibaato jacayl oo macnaheedu yahay jacaylan suuro galin jacaylan sidii la rabay aan ku dhicin marka boqolkiiba 90 nitaaqo marka lagu geeyo dhibaato filo kale waqti bay ugu qaadatay buugga bixinta magaciisu walow uu magaciisa iska lahaa nimaan saaxiibnahay marka ugu deeqa magaca daabaan ku suganay xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco haddii maanta aad magaalada Berbera noogu timaado aan isna rabday miskiinka Cabdiraxmaan Baydiimi Sooriyay maxaan kugu sooriyeena haddii cuntada noqoto haddii dooqa noqoto haddii midabada noqoto haddii hablaha noqoto wallahi Casiisay waa su'aal ka fikir badan u baahan laakiin wax walba waxa igala muhiimsan igala qiimo badan dunida Ilaahay wax la dhaqdo dad baa ugu qiimo badan dad baa ugu karaamo badan markaan helo dad hareerahayga istaagan soo dhaweyn iyo sooriyeen iyo dooqba igu filan agistaagiino markaas iga badan waxyaabaha kale soo raacaya way yaryaryiin mana badna haddana isla Cabdiraxmaan cuntooyinka waxa soo xiiseeya oo aanu ku sii diyaarino maxaan ku sameeynaa amba cuntooyinka maxaad sheegi kartaa kalluunka la isku yaqaano oo wixina lagu yaqaano Cabdiraxmaan Cabdi waxaan ku jirnaa gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena haddaba fursadda ugu dambeysay haddii aan ku siiyay barnaamijka yaa jeclaanayd halka inaad ka salaanto Casiisay waa su'aal muhiim ah halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan cid kastoo magacayga muuqayga taqaala iyo cid kastoo imika muuqayga toos u gaadhayo waxaan kale halkan uga mahad celinayaa xubnaha qoyskayga halkan ka salaamayaa oo madaxiyo manjaba aan markaas halkan ku soo koobi karayn waxaan kale halkan ka salaamayaa rag gobolka soo dhaweyn ballaaran igu sameeyay oo aad iyo aad ugu mahad celinayo insha Allah hadii eebaha wada badan xukmo toddobaadada inagu soo aadan waxaan u diyaar garoobaynaa insha Allah maalmahaba ku talagalkiisa ahaa bandhigii buugga Nitaaqa Jacayl qaybtiisii Burco qaybtiisii labaad oo ku qaban doono magaalada Burco toddobaadada soo socda hadii eebaha wada badan xikmo idmo dhamaantood waxaan leeyahay aad baad u mahadsantiin waxaan kale halkan uga mahad celinayaa walaal farsamayaqaanka imika dusheena taagan Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Soomaali waxaan kale halkan salaan uga dirayaa dhammaan mucaashaqiintu meel kasta ay joogaan naf wax jecel iyo naf wax la jecel yahay
daawadayaasheeda qiimaha qaayaha qadarinta xushmada iyo karaamada naga mudanow gebiyahanba intaasi waxay nooga eeg barnaamijkii gaarka ahaa ee la yeelanay qoraaga buugina taqa jacayl cabdiraxmaan Samadoon barnaamijka wuxuu idinka imanayaa xarunta gobolka Togdheer ee magaalada Burco barnaamijka waxa si toos ah idila socotiinaysay anigoo Wacsiisa Cabdulqaadir daawadayaal barnaamijka waxa farsamada isku hawlay Glide Production inteenu daawadayaal barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doona waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo fi amaan illah